dhulkan la dhagax dhigay waxa uu ka kooban yahay 10 boos oo ku taala degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir waxaana dhismaha xaruntan bixin doona qaar ka mid ah gabdhaha ku nool wadanka Mareykanka oo ku midoobay magaca Forgetting Mendes cisbitaalkan oo noqon doona cisbitaalka dhexe ee Xabeeb Hospital waxaana dhagaxii ugu horeeyay ee dhigay gudoomiyaha degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir iyo maamulka Xabeeb Mental Foundation Dr. Cabdiraxmaan Cali Cawaale Xabeeb oo munaasabada kooban ee dhagax dhiga ka hadlay ayaa ugu mahadceliyay gabdhaha qarashkan dhismaha bixinaya ee ku nool wadanka Mareykanka oo gudoomiyaha degmada Dharkeenley uu maanta dhagax dhigayo waa contribution waa qaaraan ay iska soo aruuriyeen dhalinyarada gabdhaha u badan ee ku nool ariga Mareykanka gaar ahaan qabanqaabiyayaasha abaabulayaasha laba gabdhood iyo hal wiil ayaa maskaxdoodii joogtigoodii fikirkoodii geliyay gudoomiyaha degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Siid Cali Xuseen ayaa ballan qaaday in ka maamul ahaan ay ku darsan doonaan dhameystirka cisbitaalkan in dhimirka bulshaweynta Soomaaliyeed qayb ay ka noqdaan una sameeyaan xarun ku haboon meeshii loogu sameeyay qof dhimirka dhibaato ay ka gaartay oo ah meel ku wanaagsan jawigeeda meel ku haboon qofka dhimirka in la geeyo waxaana ku faraxsanahay ka degma ahaan inay noqoto xaruntii ugu horeysay ee dhimirka ee Soomaaliya laga furo naqato xarunteedu ugu weyneed waxaan ugu mahadcelinaynaa tiktoorka hiiladaas noo sameeyay maamulka cisbitaalka Xabeeb ayaa hore u caawin jiray dadka dhibaataysan inkastoo uusan haysanin dhismayaal lagu daryeelo bukaanada qaba xanuunka dhimirka balse dhismahan ayaa ku soo aadaya xilli baahi weyn loo qabo cisbitaalka Axmed Cumar warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho